buugga noloshayda wax badan ka bedelay sidoo kalena fikirkayga ka dhigay qaab aan caadi ahayn. buugga la magac baxay Poor Dad and Rich Dad. buuggani waxaa qoray ninka loo yaqaano Robert Kiyosaki. buuggani waxaa jira hal sir uu saa'id u iibgeynayo. halkaas sir waxay tahay saaxiibayaal, haddaba intaan muuqaalkeena u gudagelin waxaan idinka codsanayaa inaad like iyo follow tirhaan oo nagu soo bigtaan kana mid noqotaan asxaabta nagu xiran. haddii aad dhanka YouTube nagala socoto subscribe leh oo ku soo biir kanaalkeena. sidoo kale share garee oo barnaamijkan gaarsiiya asxaab badan oo hubaashi iyaguna jeclaysanaya in buuggan bal ila eegaan bal waxa ugu weyn ama sirta ugu weyn buuggani fidinayo. in dhalinyartu ay kala ogaadaan waxa loo yaqaano assetka iyo liability-ga. inta badan ma mooganin waxaan jecelahay inaan qaadano gaarigii ugu dambeeyay, mobilkii ugu dambeeyay casriga ah, fashionka. waxa laga yaabaa adigoo shandad dhan maryaa ku taalo inaad haddana aad sii doonto maryo cusub inaad soo iibsato. wax allaale waxaad ku falaysaa aanay jirin inaad doonto brandkii ugu dambeeyay markaa faa'iidada leh. buuggan haddaba wuxuu inoo sheegayaa inaan aad ugu dadaalo wax kastoo asset ah oo inaga jeebkeena lacag soo gelinaya, sidoo kalena ka dheeraano wax kastoo liability ah oo inaga jeebkeena lacag ka saaraya amaba khasaare inagu sababaya. dhalinyartuna ay taas aad uga fogaato si ay u gaaraan guul dhaqaale iyo guul nololeed intaba. bal ka waran haddii aynu wax meel dhigan lahayn oo ay ka fogaan lahayn wax kastoo khasaare inagu keeni lahaa marka laga yimaado waxyaabaha muhiimka u ah nolosheena. haddaba saaxiib, intaas waxaa noogu eeg barnaamijkeeni maanta. inta ku kulmi doono barnaamij lamid waxaan idin leeyahay nabadgelyo dhammaantiinba.